laba ugu awood sheegtay xulka dalka Cameroon kadib markii xalay ciyaar adag ay ku dhex martay magaalada Iskandariya. ciyaaryahan Odion Igalo ayaa daqiiqadii 19aad gool u dhaliyay xulka Nigeria, laakiin xulka Cameroon ayaa 2 gool oo degdeg ah ugu jawaabay inta aysan dhamaan qaybta koobaad ee ciyaarta. daqiiqadii 63aad ayuu xulka Nigeria keensaday goolka barbardhaca. kadib 3 daqiiqo gudahooda ayay ciyaaryahanada Nigeria dhaliyeen goolkii guusha, waxa ayna ciyaarta ku soo idlaatay 3-2 oo Nigeria guusha ay ku raacday. xulka Cameroon ayaa haysta koobka qaramada Afrika, wuxuuna ka mid ahaa xulalka ugu adag ee ka qaybgalaya tartanka kubadda cagta ee ka socda dalkani Masar. dhinaca kale xulka dalka South Africa ee loo yaqaano Bafana ayaa xalay guuldaro kaga naxsaday xulka qaranka dalka Masar ee loo yaqaano Faraacinada oo martigelinaya ciyaaraha tartanka qaramada Afrika. ciyaarta dhexmartay Masar iyo South Africa oo ahayd mid aad u xamaasad badan ayaa qaybta koowaad ku idlaatay eber kadib markii ciyaaryahanada labada dhinac ay u suurtageli weysay inay iska dhaliyaan wax gool ah. qaybta labaad ee ciyaarta oo labada dhinac weerar iyo weerar celis ahaa ayaa daqiiqadaha hore u suurtageli weysay inay gool iska dhaliyaan, waxayna ciyaarta u muuqatay mid lagu darayo waqti dheeri ah. balse ciyaaryahanka Thembinkosi Lorge ee dalka South Africa ayaa goolka guusha u dhaliyay xulkiisa daqiiqadii 85 ee qaybta dambe ee ciyaarta, taasoo hal mar aamusisay 75,000 oo qof oo Masaari ah oo ku sugnaa gudaha Cairo International Stadium. xulka Faraacinada Masar ayaa ka mid ahaa xulalka loo saadaalinayay inuu qaado koobka qaramada Afrika. sidoo kale xidiga reer Masar ee Mohamed Salah ayaa furitaanka tartanka qaramada Afrika ka sheegay in xulkiisa ku guuleysanayo koobka qaramada Afrika ee sanadkani. xulka Masar ayaa soo badiyay 3 ciyaar ee wareega koobaad ee tartanka qaramada Afrika, halka xulka dalka South Africa ee Bafana si dirqi ay kaga soo baxeen wareega koobaad ee tartanka. haddaba Cabdikariin Cusmaan Joojole oo ka faalooda arrimaha isboortiga ayaa faahfaahin ka bixinaya ciyaaraha koobka qaramada Afrika ee xalay ka dhacay magaalooyinka Qaahira iyo Iskandariya. ciyaarihii xalay dhacay u dhaxeeyay xulamada Nigeria iyo Cameroon waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad iyo aad u qurux badan. waxa gooshu hore ku hormaray xulka qaranka Nigeria oo dhaliyay 20 daqiiqo ugu horeysay ciyaarta. sidoo kale waxa ay Cameroon soo baxday didiilo aad iyo aad u adag oo qaybtii hore ciyaarta ay waliba inta ka soo aartay goolkii hore ee Nigeria ku hormartay ay mid kale ugu dartay. Nigeria ayaa qaybtii labaad ciyaarta markii loo soo laabtay waxa ay la soo baxday didiilo iyo xifaaltan aad iyo aad u sareysa. waxa ayna kaga badisay Cameroon 3-2 halkaasna guusha waxay ku raacday xulka qaranka Nigeria ciyaartii xalay ka dhacday magaalada Iskandariya ee dalka Masar. Cameroon looma rajeynin guuldarada ku dhacday, waxay ahaayeen libaaxyada Afrika, heystana horena u heystay koobka Afrika. waxay ahaayeen laacibiin isku xiran oo dhameystiran oo waliba waxa wada tababare aad iyo aad muhiim u ah, laba tababare oo laba laacib oo waliba kala ah Seedorf iyo Gulfert oo waliba aad iyo aad u hormariyay hab ciyaareedka kooxda Cameroon. marka lama filaynin inay sida sahlan ay uga baxdo isreebreebka wareegga labaad ciyaaraha qaramada Afrika. ciyaartii u dhaxaysay Masar iyo South Africa oo Bafana loo yaqaano waxa ay ahayd ciyaar aad iyo aad u xamaasad badan. garoonka stadiumka Cairo Stadium International Stadium ee caalamiga ah waa la soo buuxdhaafiyay in ka badan 74,000 oo taageerayaal ah ayaa isku yimid, walow ay yaraayeen taageerayaasha taageeraya South Africa. ciyaartu waxa ay ku bilaabatay si aad iyo aad u qurux badan. waxa fursadaha bilowgii horeba helay South Africa, koonfurta Afrika,
masar ayaa marka labaad iyo saddexaad isku dayday inay goolal la imaato laakiin waa ay u suurtageli weysay ciyaartu iyadoo marayso 85 daqiiqo oo ay ka dhiman tahay inay soo ilaato 5 daqiiqo oo kaliya waxaa gool dhaliyay xulka qaranka Koonfur Afrika halkaasna guushii waxay ku raacday Koonfur Afrika dalka Masarna sida ayuu uga haray Masar waxaa loo rajeynayay maadaama ay ahaayeen faraacinadii ku guuleystay 7 jeer koobka noocan ee Afrika waxaa dadkii yowgii aan la sheekaystay ay sheegeen in dhibaatada haysata xulka Masar uu ahaa isla qabsi aan isla qabsanin ciyaartoyda iyo waliba tababaraha oo aysan la qabsanin tababaraha oo degdeg ku sameeyay isbedeladii laacibiinta uu bedelayay iyo waliba laacibiin aad iyo aad muhiim hore uga ahaa xulka Masar oo laga soo